nabadgelyo saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena xilligan qodobada aan idii haynana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo tallaabo ka dhana filla Soomaaliya iyo kooxda Damul Jadiid ka bilaabay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo kulamo halkaasi ku dhaxmaray shakhsiyaad ka soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xogihii ugu dambeeyay iyo warar kala duwan oo ka soo baxay ayaan idin soo gudbin doonaa xogaha kalena waxaa ka mid ah xogo kala duwan oo ka soo baxay safarka uu Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ku tagay dalka Djibouti xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wali ku sugan yahay dalka Masar xogihii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi idmo dowladda Mareykankana waxa ay mar kale cunaqabatayn ku soo rogtay xubno ay sheegtay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab sidoo kale iyo dagaalamayaasha Daacish oo la sheegay in laga xanibay akoonadii iyo sidoo kale barihii ay ku lahaayeen baraha bulshada magacyadooda ayaan idin soo gudbin doonaa xogahaasi kuwa kalena qaybtan waan ku faaqidi doonaa hadduu Rabbi idmo aan ku bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xilligan ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu tallaabo lama filaan ah oo ku aadan xaaladda dalka gaar ahaan siyaasadda ku dhisan iskooxaysiga iyo sidoo kale nidaamka hadda ka jira dowladda Soomaaliya uu ka sheegay waxa uu sidoo kalena ku dhaliilay madaxweynaha Soomaaliya iyo kooxda Damul Jadiid in nidaamka iskooxaysiga iyo sidoo kale qaabka loo dhisayo dowladda Soomaaliya ay tahay mid xilligan aan ku habooneen qaabka ay u wajahayaan kooxda Damul Jadiid iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu carabka ku adkeeyay inay haboon tahay in laga gudbo siyaasadda ku dhisan iskooxaysiga iyo sidoo kale milkiilaha dowladda Soomaaliya waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani isagoo oo sheegay in laga gudbi doono nidaamka hadda jira waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in dowlad goboleedka Puntland uu xilligan ka bilaabi doono doorasho qof iyo cod isagoo oo sheegay in qof waliba uu la soo shartagi doono kalsoonida uu ka haysto shacabka dowlad goboleedkaasi waxa uu sidoo kale weerar ku qaaday agaasimaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad isagoo oo sheegay in amnigii loo xil saartay uu ka soo bixi waayay xilli magaalada Muqdisho uu sheegay in ay wajahayso culays kala duwan sidoo kale dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho ay ku soo qulqulayaan qaar ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo uu sheegay in looga soo adkaaday jiidda hore ee dagaalka waxa uu sidoo kale sheegay in hay'adaasi looga baahan yahay inay adkayso caasimadda amnigeeda iyo sidoo kale deegaanada ku teedsan iyo gobolada dalka waxa uu sidoo kale sheegay in agaasimuhu uu ka fadhiistay arintaasi sidoo kalena uu u jeestay dhanka siyaasadda xilligan aan laga doonaynin inuu siyaasadda ka hadlo balse laga doonayo inuu ka shaqeeyo amniga caasimadda iyo dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu halkaasi kulamo kala duwan kula qaatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida oo aad uga soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo halkaasi kulamo kula qaatay xubno waaweyn oo aad uga soo horjeeda kooxda Damul Jadiid iyo xukuumadda uu hogaaminayo wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kulamada magaalada Nairobi ku dhaxmaray hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale xubnahani waxa la soo tabinayaa in ay ka wada hadleen sidii looga qaban lahaa dowladda Soomaaliya loogala shaqeyn lahaa sidii uu mar kale u soo laaban lahaa hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu sidoo kale xubnahani la wadaagay in hogaanka Damul Jadiid iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ee xilligan uu dagaal kala dhaxeeyo hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu sidoo kale hadalkiisa ku daray xubnahanina uu la wadaagay in culays waaweyn uu kala kulmayo dowladda Soomaaliya iyagoo doonayo in qof cusub ay dowlad goboleedkaasi u soo dhisaan xilli ay doonayaan in ay gacantiisa ka maroojiyaan hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani warar kala duwan ayaa ka soo baxaya safarka uu magaalada Muqdisho kaga baxay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ku gaaray dalka Djibouti wararku waxay tibaaxayaan in Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin sidii la isaga kaashan lahaa dagaalada xilligan ka soconaya qaybo ka mid ah gobolada dalka sidoo kale waxa uu sheegay in xilligan Soomaaliya ay wajahayso culays waaweyn oo uga imaanaya dagaalyahanada Al-Shabaab oo uu sheegay in xilligan ay ku soo qulqulayaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya iyagoo doonaya in magaalooyinkani ay ka fuliyaan qaraxyo waaweyn oo uu sheegay in haatan la soo warinayo in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay soo galeen rag aad u tiro badan oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab
waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Jabuuti ay dowladda Soomaaliya ka caawin karto hubka iyo sidoo kale ciidamada ee ka jooga dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre wararku waxay intaasi ku darayaan inuu ka codsaday madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele inuu aad u soo kordhiyo ciidamada ka jooga dalka Soomaaliya. waxa uu sidoo kale sheegay in qaybta ka joogto gobolka Hiiraan lagu soo daro ciidamo aad u tiro badan maadaama gobolkaasi uu ka soconaya howlgallada ugu adag ee lagula jiro dagaalyahanada Al-Shabaab. waxa uu sidoo kale hogaamiyaha dowladda Jabuuti ka codsaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in ay qayb ka noqdaan dadaalada dib loogu soo celinayo ciidamada ku sugan dalka Eritrea oo dhawaanaha la filayo in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dalkaasi gaaro si mar kale uu ugala hadlo madaxweynaha dalka Eritrea sidii loogu soo celin lahaa dalka Soomaaliya. dhalinyarada halkaasi muddooyinkii dambe tababarka u joogay oo maalmihii ugu dambeeyay la soo warinayay in dowladda Eritrea ay diiday dalabkii ugu yimid hogaamiyaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in dalka dib loogu soo celiyo dhalinyaradaasi. ugu dambeyntiina haddii aynu kusoo gabagabayno Mareykanka ayaa wareegii labaad ee cunuqabataynta muddo toddobaad gudihiisa kusoo rogay shakhsiyaad iyo shirkadaha Afrikaan ah kuwaasi oo uu sheegay inay taageero dhaqaale ama sidoo kale agab siiyeen kooxda Daacish iyo Al-Shabaab. xafiiska maaliyadda ee xakamaynta hantida shisheeye wuxuu xayiray 4 qof iyo sidoo kale 8 shirkadood oo ay maamulayaan shakhsiyaad ay sheegeen in ay ku jiraan unugga dowladda Islaamka ee Koonfur Afrika. shakhsiyaadka ayaa kala Nufeel Akbar, Yunis Maxamed Akbar iyo sidoo kale Maxamed Akbar iyo Umm Akbar. ganacsigooda dahabka iyo sidoo kale dhismahooda iyo shirkadahooda kale waxaa lagu bartilmaameedsan doonaa sida la sheegay cunuqabatayn kale oo lagu soo rogi doono. toddobaad ayaa hakisay oo xanibtay wax kale iibsi kasta oo suuragal ah oo ay la galaan hay-adaha Mareykanka waxayna ka hortagaysaa in dadka Mareykanka ay ganacsi la sameeyaan dadkani aan soo sheegay iyo sidoo kale shirkadahooda. Mareykanka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu waday cunuqabatayn uu saarayo dadka cilaaqaadka iyo sidoo kale hubabka iyo agabyada kala siiya kooxaha ka dagaalama Soomaaliya waa Daacish iyo Al-Shabaab iyadoo maalmihii la soo dhaafay dad ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland oo aad u tiro badan oo ganacsatada la sheegay in ay hubab iyo sidoo kale lacaga u soo daabulaan dagaalyahanada Al-Shabaab. Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogay waaxda maaliyadda ayaa toddobaadkii hore soo saartay cunuqabatayn dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo ka dhana shabakad ka ganacsata hubka oo xiriir la leh kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo kooxaha kale Al-Shabaab ee xiriir kale leh sida la sheegay Al-Qaacida. shakhsiyaadkan oo Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay fuliyeen falal argagixisnimo oo halis ah oo lagu dilay dad rayid ah oo ay ku jiraan qaraxyo baabuur sidoo kalena xayiraadaan waxay timid markii qarax uu 220 qof ku dilay sidoo kalena tireentaasi ka badan ay ku dhaawacmeen uu ka dhacay magaalada Muqdisho isgoyska Zobe iyadoo Mareykanku uu sidoo kale xogihiisa ku daray in muddooyinka nagu soo aadan uu ganacsiyo kale iyo sidoo kale ganacsato kale uu ku soo rogi doono xayiraado waaweyn oo uu sheegay in muddooyinka baliiskoodu waayay balse mar qura lagu dhawaaqi doono. wararkii ugu dambeeyay qubnahana waa inta